wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aan ku eegi doono madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo amray in la soo rido diyaaradii ka degta deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose iyo warar sheegaya in mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya uu ka mid yahay Ra'iisul Wasaare Xamse oo ku wajahan deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose. marka hore daawadayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad ku soo biirtaan boggayaga siina share gareysaan warbixintayada si ay u gaarto saaxiibo wanaagsan sida idinka oo kale. wararka hoose ee soo baxaya ayaa sheegaya in wafdi sare oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay ku wajahan yihiin deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose oo dhawaan dawladda Soomaaliya ay ku daadgureysay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada Gorgor iyo Haramcad ee sida gaarka ah u tababaran. wararka waxa ay sheegayaan in deegaankaasi uu ku wajahan yahay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo oo la filayo in saacadaha soo socda ay gaaraan deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose. hase ahaatee madaxweynaha Jubbaland ayaa la tilmaamay inuu faray ciidamada maamulka Jubbaland in ay soo ridaan diyaaradii isku dayda in ay soo qaado wafdiga Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ee la filayo in maalmaha soo socda ay gaaraan deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose. maalmihii ugu dambeeyay waxaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareerayay xiisadda ama khilaafka ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ee ka dhashay arrimaha doorashooyinka tan iyo markii dib loo doortay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe markii saddexaad ayaa waxaa sii adkaatay xiisadda u dhaxaysay labada dhinac. lama oga sida wafdiga sare ee xukuumadda Soomaaliya ay ku gaari doonaan deegaanka Ras Kamboni maadaama madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu amar ku siiyay ciidamada in ay soo ridaan diyaaradii isku dayda inay soo qaado Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. dadka indheendheeya arrimaha siyaasadda ayaa khilaafka Jubbaland iyo dawladda federaalka ku tilmaamaya mid muujinaya ififaalo gacanka hadal ah oo dhaxmari kara ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa dawladda Soomaaliya. deegaanka Ras Kamboni oo ah magaalo xeebeed ayaa istiraatiiji u ahaa maamulka Jubbaland kaasoo gacantooda ka baxay dabayaaqadii bishii la soo dhaafay ayna si rasmi ah ula wareegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. isla wararka Jubbaland ayaa ku jirnaa dhinaca kale taliyaha ciidanka gobolada waqooyi ee Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday inuu fashiliyay isku day afgambi oo ay doonaysay dawladda Soomaaliya inay ku sameyso maamulka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. taliyaha ciidanka booliiska Jubbaland ee gobolada waqooyi ayaa sheegay inuu fashiliyay afgambi la doonayay in dawladda Jubbaland lagu sameeyo kaasoo laga soo abaabulay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya isla markaana uu hogaaminayay gudoomiyihii hore ee deegaanka Ras Kamboni oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho sida uu hadalka u dhigay. taliyaha ciidanka booliiska gobolada waqooyi ee Jubbaland Kabtan Cabdixakiin Xasan Carte oo loo yaqaan Jabuuti ayaa sheegay inuu xiriir la soo sameeyay gudoomiyihii hore ee degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose kaasoo dhawaan xilka qaadis uu ku sameeyay madaxweyne Axmed Madoobe isagoona sheegay inuu kala hadlay inuu doonayo in la afgambiyo maamulka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isla markaana ay ku biiraan ciidanka booliiska oo taliyaha uu hogaaminayo ciidamada dawladda ee ku sugan deegaanka Ras Kamboni. wuxuu iga dalbaday inaan afgambi ka sameeyo aaga aan xukumo ilaa Kismaayo bartamaheeda taasoo ah wax ii cuntami waayay iina qalmin. wuxuu adeegsanayay dhaqaale aad u fara badan. markii hore waxa uu ii soo diray $75,000 mar kale waxa uu ii soo diray $15,000 markii ugu dambeysayna wuxuu ii soo diray $5,000 ayuu yiri taliyaha booliiska gobolada waqooyi. wuxuuna sheegay in dhaqaalahaasi uu ku wareejiyay wasaaradda maaliyadda maamul goboleedka Jubbaland. Kabtan Cabdixakiin Xasan ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay saraakiisha ciidamada Jubbaland inaysan ku qaldoomin lacagaha lagu siinayo inay ka hor yimaadaan maamulka ay ka tirsan yihiin isla markaana ay ka fogaadaan in loo adeegsado waxa uu ugu yeeray qalqalgelinta amniga deegaanada maamulka Jubbaland. hadalkan ka soo yeeray taliyaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ama maalmihii la soo dhaafay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsanaa Jubbaland ay ku biirayeen dhanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan
deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose. Isku soo wada duuduuboo khilaafka u dhaxeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa haatan u muuqanaya mid sii xarga goosanaya, waxaana dadka Soomaaliyeed ee si gaar ah indhaha ugu wada hayaan halka uu ku biyo shuban doono khilaafka u dhaxeeya labadan dhinac. Daawadayaal, wararkan iyo warar kale oo muhiim ah waxaad ka daawan kartaa boggayaga Wehelka Cusub Media. Waad ku mahadsantihiin daawashada wararkayaga.